kamida roobkii xalay ka daayay magaalada muqdisho oo sababay dhimasho iyo burbur guryo badan oo dad danyar ah ay degan yihiin magaalada muqdisho. madaxweynaha hirshabeelle oo sheegay in dowladda federaalka ay soo gaarsiisay lacag ka badan $1 milyan oo qaarkood ay ugu deeqday dowladda Jabuuti. dowladda Jabuuti oo sheegtay inay qayb ka qaadanayso dadaalada looga hortagayo fatahaadda webiga Shabeelle ee Beledweyne. maamulka gobolka Hiiraan oo digniin u diray dadka ka barakacaya xaafadaha magaalada Beledweyne ee gobolkaasi. dhalinyarada cabaya sunta oo ku soo badanaya magaalada Gurceel xilli xalay gabadh dhalinyaro ay sun ku cabtay magaaladaasi. degmada Dayniile oo guul ka gaartay xalay dhigeeda Boondheere barnaamijka taariikhda dalka iyo tartanka bisha Ramadaan oo ay qabato idaacadda Kulmiye. webiga Daawa oo ku fatahay deegaano ka tirsan ismaamulka Mandheera oo sababay khasaare isugu jira naf iyo maal iyadoo yaxaas uu halkaas ugu dilay 3 ruux. iyo cudurka coronavirus oo mar kale ku soo laabtay dalka Shiinaha. warbalii waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa beenraad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa haddaba. waa subaxnimo isniin ah taariikhduna waxay ku beegan tahay 11 bisha shanaad sanadka 2020 warkaas oo dhan waxaa soo saaray Axmed Maxamed Ibraahim waxaana akhrinaysa wariyaheenna Maryama Cabdulla Xasan. waad mahadsan tahay Cali Ibraahim Cabdullaahi. subax wanaagsan ku soo dhawaada warkiyo faahfaahsan. madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay soo gaarsiisay lacag ka badan $1 milyan oo oo ay qaarkeed ku deeqday dowladda Jabuuti. dhanka kale dowladda Jabuuti ayaa waxa ay sheegtay inay qayb ka qaadanayso dadaalada looga hortagayo fatahaadda webiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Cabdisataar Xaaji Cali ayaa ka waramaya. madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku xaqiijiyay in dowladda federaalku ay ku wareejisay lacag cadadkeedu ay gaaraysay $600,000 oo taasoo sanadkii hore ay dowladda Jabuuti ugu deeqday in biyo xireenka loogu sameeyo magaalada Beledweyne taasoo sanadkiiba 2 mar ay biyo baxdu ka dhacdo. sidoo kale Waare qoraalkiisa waxa uu ku sheegay in lacagta maanta la soo gaarsiiyay ay ku jirto $500,000 oo ay dowladda federaalku u ballan qaaday reer Beledweyne iyo $42,000 oo uga timid guddiga gargaarka heer qaran waxaana cadadka lacagtaas isku noqonayaa $1,142,000. madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare ayaa sheegay in ganacsatada reer Beledweyne lacagtii loogu talagalay gurmadka Beledweyne haddii aysan si fiican u maareen tilaabo adag laga qaadi doono. ganacsatada lacagta loo dhiibay waa lacag dadka Hirshabeelle loogu talagalay ammaana loogu dhiibay. hadda tu kala soo socota ayagaan u dhiibaynaa meel kale geyn mayno laakiin annaguna meeshay ku baxday inaan la soconaan rabnaa. amarkaaday ku shaqaynayaan injineerada taladooday ku shaqaynayaan hawshii la qabanahay ku shaqaynayaan. haddaysan intaas aysan samayn karin bannaanka ha ka istaagaano wanaagooda iyo fiicnidooda iyo mataqaanaa quruxdooda meel kale ayay ka anfacaysaa. laakiin hawshaanu waa hawl u baahan garbaha in la isqabsado. haddaan garbaha la isqabsanayn oon talada annaguba sow muxuu ahay mas'uuliyaddii ammaanada sow lacagta ayaga kuma wareejin. maxaa diidaa ayaguna in la tashado inay diidaan? maxaa diidaa inay muxuu ahay injineerada taladooda raacaan? maxaa diidaa in howlgalka guddoomiyaha gobolka inay ku shaqeeyaan? arrintaas guddiga dhammaan ka wada shiri doonnaa. meeshii ay markaana ay tagtana waa arkaynaa. dhanka kale safiirka Jabuuti u fadhiya Soomaaliya Aadan Xasan Aadan ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda ka jirta magaalada Beledweyne isagoo sheegay in deeq walba oo ay Jabuuti u marsiiso Soomaaliya ay dowladda federaalku ay yaqaanaan halkii loogu talagalay. anagu wixii aanu qorshaha iyo arrimaha maaritaanay farsamada ah waxa iska leh dowladda Soomaaliyeed ama ha noqoto dowladda federaalka ama dowlad goboleedyada ha noqoto. laakiin shacabka reer Jabuuti wixii ay ku soo gurmadeen ay walaalahooga ugu soo gurmadeen waxa waajib ka saaran yahay inay u dhiibaan maaritaanay dowladdii dhexe federaalka ahayd. marka guddigii ay dowladda Soomaaliya u magacawday masiibooyinka qaran oo uu hogaaminayo wasiirkii wasaaradda maaritaanay
masiibooyinka iyo gargaarka iyo masiibooyinka oo maaragtaan xamse uu hogaaminaya ayaan anagu gacanta kaga ridnay dee waad garanaysaayo sida uu waajibku yahayna waa sidaas oo annagu inaan u maamulno ma aha waajibka iyagu ee wixii gargaara inaan maaragtaan walaalaha iyo kalsooni weyn ayaan ku qabnaa inay maaragtaan shicibkooga ay wixii loogu dhiibo ay gaadhsiinayaan dee haddii aanay weli gaadhin iyaga ugu maaragtaan dee fara dhuudhuuban nina jirhkiisa biyo kama dhowro marka waan ku kalsoonahay inay meeshii ugu baahi badnayd ay kolley gaadhsiiyeen amisom jabuuti ee halkaa jooga ay shaqada ay hayaan iyo shaqada gurmadka ahee dowladda federaalka ee soomaaliya ay ka samaynayso oo dalkayga u samaynayso waa kala laba hawlood gargaarkaasi waxaan aaminsannahay annagana wuu naga soo tegey ummadda soomaaliyeedna hoggaankeygii ayaanu u dhiibnay annaga xaggeenna waajibkaasi inaan gudannay oo ummadda reer jabuuti ay gudatay kuwa soo socdana uu xilnaga saaran yahay oo walaalahaya aan mar walba maaragtaanay u gurman doono haddii ilaahay yidhaahdo ka maanta jooga iyo maaragtaanay kuwii yimaadaba kuwii isku gurmadaa aan nahay maalmihii lasoo dhaafay waxaa afka furtay waxgaradka iyo siyaasiyiinta reer hiiraan kuwaasoo ka cabsi qabaa in magaalada beledweyne mar kale ay biyoharqiyaan waxayna xukuumadda federaalka ay ku eedeeyeen in laga la'yahay lacagtii ay ugu yabahday beledweyne iyo tii ay ugu deeqeen dowlada ay ka mid yihiin jabuuti iyo sidoo kale somalilan iyo sidoo kale deeqo gacantooda ku soo dhacay gurmadyadii kale ee xilligaas la aasaasay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa amray wasaaradda maaliyadda in ay fududayso qarashaadka ku baxa dadaalada looga hortegayo fatahaadda webiga shabeelle roobkii xalay ka da-ay magaalada muqdisho iyo hareeraheeda ayaa waxa uu sababay dhimashada 3 ruux iyo burbur guryo fara badnaa oo dad masaakiin ay degnaayeen roobka ayaa sidoo kale waxaa ka barakacay dad masaakiin ah oo guryahooda ay biyo qaadeen sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah isla xalay ayaa dadka qaar waxaa loo sameeyey gurbad biniaadanimo maadaama dadkaasi ay guryahoodii ay ku burbureen roobabkii da-ay magaalada muqdisho wadooyinkeeda waaweyn ayaa waxaa biyo dhigay roobkii xalay ka da-ay magaalada muqdisho iyo kuwii horeyba maamulka gobolka hiiraan ayaa digniin u diray dadka ka barakacaya xaafadaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan cali cilmi salaad ayaa warkan faahfaahinaya gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeti cismaan ayaa sheegay in la xiray halka ay biyaha webiga ay ka soo galaan magaalada beledweyne ee gobolkaas gudoomiye jeeti ayaa sheegay in lagu guulaystay in la xiro duleedka magaalada oo ah halka ay ka yimaadaan biyaha webiga marka uu fatahaad ka sameeyo webiga shabeelle kaas oo mara gudaha magaalada xarunta u ah gobolkaas ee beledweyne waxa uu sidoo kale uu ku goodiyey gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeti cismaan in lala xisaabtami doono dadka ka barakacaya magaalada maadaama uu sheegay in magaalada aysan soo gaarin fatahaadda biyaha webiga intaa way ka badan yihin laakiin marka loo eego xanidyada loo dhigo iyo dagaalka lala galo waxaa la dhihi karaa awooddoodu ma dhamo boqol milyano mitirkiibi awooddoodu ma dhamo sababtu tahay 5 xani baa loo dhigay meel walbana webiga waa laga ooday albaab kalena waa loo furay biyahaasi maxay noqon karayaan marka awooddoodii waa lagu ciyaaray sooma waa ku ciyaarnay awooddoodii ilaahay mahadnaq ka gaarto cid kasta oo ka qayb qaadatana ama ha noqoto dawlad dhexe oo noo soo dirtay saambaagiyo iyo technicality ama ha noqoto nimanka hareerteeda taagan ama ha noqoto ciidamada ka howlgelaya oo afraasisha nala socda ama ha noqoto madaxweyne dawladda stateka iyo muftiga maanta cid kasta oo xitaa muraal iyo support ku taageerta oo mahadcelinayo ninku hadduu maalkiisa bixiyo isagoo kaa tago wax badan uu kaala hayo laakiin markuu naftiisana keeno maalkiisana keeno wax badan uu waxaan rabaa inaan baaqiyaro diro iibaanka allaha gasho dadka qaxaya meeshaan calal ku xirnana ka furayo iibaanka allaha geliyo haddii iibaanka alla geli waayo ilaahay baana ka hor keeni doona sharcigaana waafaji doonaa hal qof oo damaanadana kama yeeli doona oo naga dambeeya hal qofa qoysas badan ayaa ka barakacay xaafadaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kadib markii ay ka cabsadeen fatahaad uu magaalada ka sameeyo webiga shabeelle waxaana sidoo kale wararka qaar ay sheegayaan in xaafadaha qaar ee magaalada ayba soo galeen fatahaadda biyaha uu ka sameeyey webiga daawa oo ku fatahay deegaano ka tirsan ismaamulka mandheera ayaa lagu soo waramayaa inuu sababay khasaare isugu jira naf iyo maal iyadoo yaxaas uu halkaasi ku dilay 3 ruux
maslax abuukar xaaji ayaa warkan faahfaahinaya. roobab saacadihii ugu dambeeyey ka da'ayay deegaanada ismaamulka Mandheera ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay sababeen in fatahaad uu sameeyo webiga Daawa oo mara halkaasi, iyadoo lagu soo waramayo in ugu yaraan 3 ruux uu halkaasi ku dilay yaxaas la sheegay in uu soo raacay biyaha soo fatahay, halka sidoo kale la soo badbaadiyey dad badan oo ay daadadka fatahaadda qaadeen. xaalad adag oo nololeed ayay iminka wajahayaan dadkaasi, waxaana ay yihiin kuwa aan haysan hooy iyo cunto iyadoo lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. khasaaraha meeshan ka dhacay waa weyn yahay, waa ballaaran yahay. beerihii horta oo khasaarada biiboon laga bilaabo ilaa malkaamari waa isla qabnaa webiga fatahaadda, laakiin annaga khaasatan neeboy ahaan waxaan qabnaa khasaaro. beeraha waxaa ku yaalay camba, waxaa ku khudaaraa ku yaalay, wixii waa la geli waayey. dadaa caws soo qaadana ku noolaay, dadaa washaaq la baxayay, dhallinyaradii meel ay gelayiin male. webigii wax khatar ee hadda biyahan aad argtayn aad arkaysiin aan ag taaganahay, yaxaaskiyaaba khatar inuu guryaha naga galo. marka waxaan codsanaynaa countiga iyo nationalkaba in dadkan la soo gaaro. qaxani biyahana gali magalkaan horti washaaqalay leeyahay, ganaanadunga ka shaqeeyani unortibo xafiis ma fadhiin, buuqi qalan ma haysan, buugaan iyo qalankaan iyo xafiiskana ganaanadunga hayti, ganaanadii hanoo jibiidi, beeragi biyaha hanoo gali, awlaadii rafaad isila ayaa ka jaran idoogan dhanka qaani. 2 ruux fasaxada hore xasan ka qaaday oonan ka soo fajinay, fasaxadana saas amal 1 ruux ayaa xasan ka qaaday, wixii kalena webiga qaaday aan soo qabanay, irir waa dhamaaday. marka waxaan qabanay waxaan kalaan garan laanay, waana soomanahay, marka waxaan ku furna ma haysanahay. waxay ugu baaqeen mas'uuliyiinta ismaamulka iyo kuwa dawladda dhexe ee Kenya in ay ilgaara ku fiiriyaan, maadaama dadkan hantidoodii ay ku baaba'day fatahaadda uu sameeyey webiga Daawa. wararka ka imaanaya magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa ku soo waramaya in halkaasi habeennimadii xalay ay gabar sun ku cabtay gudaha magaaladaasi, taa oo markii dambe la dhigay cisbitaalka magaalada Guriceel. dhaqaatiirta cisbitaalka ayaa la tacaalaya xaaladda gabadhan, walow dadka qaar ay sheegeen in xaaladeedu ay tahay mid liidata. sababta ka dambaysa inay sunta cabto gabadhani ayaa dadka qaar waxa ay ku tilmaameen inay tahay arrimo la xiriira caashaq, walow aanan si dhab ah loo ogeyn, halka dad kalena ay sheegeen in gabadha sunta cabtay waalidkeeda ay ku qasbeen nin aysan rabin, taasina ay keentay inay sun cabto. bilo ka hor waxaa magaalada Guriceel sidaan oo kale sun uga cabay wiil dhalinyaro ah, kaasi oo la tilmaamay in loo diiday gabar uu jeclaa, balse nasiib wanaag wiilka kolka uu ka soo bogsaday suntii uu cabay ayaa loo guuriyay gabadhii uu jeclaa oo darteed sunta uu cabay. degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ayaa xalay guul ka gaartay dhigeeda degmada Boondheere barnaamijka taariikhda dalka iyo tartanka bisha Ramadaan ee raadiyo Kulmiye. cali cilmi salaad ayaa ka waramaya. degmooyinka Boondheere iyo Dayniile ayaa xalay ku tartamay barnaamijka taariikhda dalka ee tartanka bisha Ramadaan ee idaacadda Kulmiye. labada degmo oo ku wada jira groupka B ayaa xalay wareegga saddexaad ee barnaamijka taariikhda dalka ee tartanka bisha Ramadaan ee KNN isaga hor yimid. labada degmo ayaa soo bandhigay tartan aad u wanaagsan, iyada oo degmo kasta ee diiradda ay saaraysay sidii ay ugu gudbi lahayd wareegga xiga ee tartanka. ka hor inta uusan bilaabin barnaamijka, waxaa xalay barnaamijka marti ku ahaa oo lagu soo dhaweeyey fanaanka Maxamed Daawud Cali Masxaf. رمضان كريم وحايد الله رمضان وانا بالسلام يا بعد اذاعه بعد شقالها دحقلك بلشده waa muhiim walaalo waqtiga hadda aan joogno dexgalka bulshada waa muhiim waa arin lagama maarmaan yaada anagu fanaaniinahayna waa ka qayb qaadanaynaa dexgalka bulshada. inta uu soconayay tartanka ayaa waxaa qayb ka ahaa majaajilistayaasha, kuwaas oo looga bartay in alaaba ay ka soo dhex muuqdaan barnaamijka taariikhda dalka ee tartanka bisha Ramadaan ee KNN. فيري ابو انا اوكيان ولكن waxaa ka jiro maxaan ku raadistaa madow iyo cadaan waa inta waa walaal talagal haye kaalif waxaan ka cabsaday fanaanin inay ku soo dhaween xadir rabaan qaado qorsaga haye covid-19 haye كفوغادا كارون فيريس هاي كوني كوجر هندسايو هاي كوكوديسا كي بادتو هاي كوفيد 19 كفوغادا هاي degmooyinka Boondheere iyo Dayniile ayaa dhibcaha ay kala keensadeen iyo cidda ay guusha raacday waxaa ku dhawaaqay guddiga tartanka.
waa kan maxamed cabdulaahi shilaawe oo qayb ka ah guddiga. caaw wuxuu dhex maray degmooyinka Boondheere iyo Daynile. Boondheere waxay xaq u lahayd in la weydiiyo 7 su'aalood. 7 su'aalood waxay ka jawaabtay 4 ka mid ah 3na waa ay gaftay. waxayna ka faa'iideysatay 2 su'aal oo soo hareer martay degmada Daynile, waxayna ururtay dhibco gaadhay oo wadartoodu 12 dhibcood, halka degmada Daynile ay xaq u lahayd in la weydiiyo 7 su'aalood. 7 su'aalood waxay ka jawaabtay 5 ka mid ah 2na waa ay gaftay. waxayna ka faa'iideysatay 3 su'aal oo soo hareer martay degmada Boondheere ay caawa tartamayeen, waxayna ururtay dhibco gaadhay 16 dhibcood. tartanku caawa wuxuu ku soo idlaanayaa Daynile oo leh 16 iyo Boondheere oo leh 12 dhibcood. dhinaca kale hadduu eebeedmo waxaa caawa barnaamijka taariikhda ee dalka ee tartanka bisha Ramadaan ee idaacadda kulmiye ku bartamaya degmooyinka Hodan iyo Xamar Jajab, kuwaas oo ku jira gruubka B kaas oo caawa la soo afmeeri doono. waa mahadsan tahay cali cilmi salaad. warka subaxee raadiyo kulmiye ayaad la socotaan. dalka Shiinaha ayaa waxaa mar kale sare u kacay tirada uu soo ritay cudurka corona kadib markii xalay halkaasi laga diiwaan geliyay 17 kiis oo cusub. 5 ka mid ah kiisaskani ayaa waxaa laga diiwaan geliyay magaalada Wuhan. magaaladan oo ah goobtii uu cudurka COVID-19 ka soo bilaabmay ayaa waxaa kiisaskani ay yihiin kuwii uu ka dhashayba gudaha magaalada oo aan meel kale uga imaan. waa tiradii ugu badnayd oo laga helo Wuhan tan iyo intii shaaca laga qaaday in cudurka laga soo afjaray magaaladaas. saraakiisha caafimaadka ayaa rumaysan in 5 kiis ee la helay ay yihiin shakhsiyaad hal goob ku nool. magaalada Wuhan oo xudun u ahayd cudurka coronavirus ayaa dhowr maalmood wax kiisas ah